وعشرة فيها أحد المعنطة وتعرف مدحوينه إذا فقاعدين مفشلة ما سعودها halka qof oo furin biga haysta waa bixi kara haduu rabo xarunta villa hargeysa waxaa maalintii shalay ka qabsoomay kulanka kama dambaysta ee golaha shacabka Soomaaliya labadiisa gole madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku ballansanaa daafurka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka kulanka ayaana ku soo dhamaaday buuq iyo rabshad ay sameeyeen xildhibaano ku qanci waayay khudbadii madaxweynaha jeedinayay iyadoo lagu qaadacay soo jeedintii madaxweynaha cod sawaxan sare leh oo lagu lamaaniyay yeerinta firan baan joogsi lahayn ilaa lagu macsalaameeyay madaxweynaha khudbad aan sal fadhiyo lahayn ayuu jeediyay madaxweynaha loona macneyn kari laba qaab oo kala ah in madaxweynaha uu isku qalday midii uu mar labaad isku soo sharaxi lahaa iyo in ay qaadan waa ku noqotay waxa meesha ka socdo saasna uu ku kariyo khudbadii laga baahnaa ee la wada sugayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbadiisa ku soo koobay noqdooyin uu ku sheegay waxyaabaha dawladdiisu u qabsoomay mana uusan ka hadal arrimo badan oo muhiim ah in khudbada lagu soo daro dalkana uu hadda ku sugan yahay shaqaale dawladeed hal bil mushahar laan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar laan ma noqon idinka wacan idinka ka mas'uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin halka qof oo furin biga haysta waa bixi kara haduu rabo waa hal qof xildhibaano dhowr ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arbushaada lagu sameeyay khudbada madaxweynaha markuu soo idlaaday kulanka saxaafadda xorta ah oo dibad joogna ka ahayd kulanka ayay la hadleen xubno ka mid ah xildhibaanada xildhibaan xasan yare ayaa sheegay khudbada madaxweynaha in aysan ahayn mid ay ka sugayeen waxauna sheegay qodobo dhowr ah uusan soo hadal qaadin madaxweynaha sida mashaqadii ka dhacday magaalada Baydhabo kuna nafwaayeen shacab fara badan kuwa kalena ay ku dhawaameen dagaalkii magaalada Dhuusamareeb lagula galay ururkii ahlu sunna oo isla dhimasho sababay hankii lagu ciyaaray murashaxiinta isu soo taagay hogaaminta maamulka Galmudug ee ugu dambeyn iska casilay baratanka xilka madaxweyne ay u gali lahaayeen iyo dil wadareedkii dhawaan 8 dhaqaatiir lagu geystay gobolka Shabeellaha Dhexe si lagu sugay madaxweynaha inuu la imaado qorshe wadanka xaalad u marayo ee madaxweynaha wuxuu ka jeediyay meesha khudbad aan la jaan qaadi karin dalka asagoo aan ka hadlin dhibaatooyinka taagan asagoo aan ka hadlin amniga wadanka 4 sano la joogay al-shabaab aan laga xoreynin asagoo aan ka hadlin dadkii lagu laayay Shabeellaha Dhexe la xusuuqata khaatirta ahaa asagoo ka hadlin badii ummadda Soomaaliyeed oo mar walba dib loo dhigayo oo hadalkada uu soo qaadin asagoo ka hadlin doorashada wadanka ka dhacaysa dowladda federaalka xiriirka ay leeyihiin asagoona ka hadlin arrimihii dastuuriga loo igmaday ee xildhibaanada federaalka ah aqlabiyadooda meesha jooga wax yar mooyaan intooda badneed arrintaasi aad bay u dhibsadeen waxayna ka hor imaadeen waxayna muujiyeen dareenkooda ah in dhibaatada ka socota ee ciidamada lagu daadguraynayo dowlad goboleedyada lagu xasuuqay dadka sabab socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku xasuuqay shacabka Soomaaliyeed magaalada Baydhabo wuxuu ku xasuuqay magaalada Dhuusamareeb wuxuu ku xasuuqay magaalada Badalay ayuu ku xasuuqay ciidamada shisheeye ee ciidamada dowladda federaalka siyaasad u isticmaalay waxaas oo dhan oo taagan oo wuxuu dhigay muwaadin Soomaaliyeed oo Itoobiya gacan u geliyay ilaa hadda uu ka hadlay wuxuu ku soo daadguraynayaa Soomaaliya ciidamo nan amisoon ama mid ku joogin wuxuu isticmaalayaa dhaqaalihii iyo amnigii iyo awoodii dowladeed oo gabaabsi ah wuxuu isticmaalayaa in Soomaaliya ay ku laabato dagaal sokeeyo sidoo kale xildhibaan Saadiya Saciid ayaa soo hadal qaatay in fashil uu ku yimi dowladda Soomaaliya waxayna sheegtay kulanka baarlamaanka in uu ka qabsoomi lahaa iskool Buluusiya baqdin laga qabo in la soo duqeeyana lagu bedelay villa Hargeysa saasna aysan ku dhici karin in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka hirgasho sababta keentay in madaxweynaha khiyaaliga uu ka hadlay aan baarlamaanka uga dhex istaagtana waxay ahayd madaxweynuhu intii dhibaato taagneyd oo 8 maxaa la dhahaa dictator oo la dilay uusan ka hadlin mayd maxaa ugu dameeyay baa la dhahaa kala sii sida kii xataa kama hadlin wili aada kama tacsiyadayn wuxuu yiri sanadkii hadda lagu jiro 27 qof baa dhintay waana ogtiin maalin kasta maydka yaala dhalinyarada iyo qof kasta everyday waxa dhacaya maanta waxa ugu dambeeyay
oo xalay MSS-ka naloo soo diray oo filla Hargeysa inta la eeg liir hal yimaado waxay ahayd iskool bulisi oo laga baqay hoobiyayaal wadanka nabadiisa horta halkaas ay maraysaa maqaamka Muqdisho ayay sidoo kale ka sheegtay in loo baahan yahay in la helo dadkii matali lahaa magaalada Muqdisho anigu hal baaq baan jeedinayaa marka baaq uma jeedinayo xildhibaanada baaq uma jeedinayo gobolada baaq uma jeedinayo waxaan u jeedinayaa reer Muqdisho 4 milyan baa sheegataan waxa ogtihiin Minneapolis waxa lagu dilay hal nin oo madow ah 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad sababta intii 8 ditoor la dilay aan reer Muqdisho uga hadlin dhaqameedyada uga hadlin dhalinyarada uga hadlin hooyooyinkii uga hadlin horta idinka ayaaba tihiinba masuul ka ah in dadka saa loo baabi'iyo annagii halayna waxa annaga naloo maqli la yahay baawarka waxa haysta waa reer Muqdisho in nin meel kale ka yimaado gobol baan ka imaaday nin kasta percentage buu ka yahay yaa Muqdisho matala su'aasha ani arra waxay tahay Muqdisho horta yaa matala xildhibaanadoodii senataradoodii aniga waxa leeyahay haday looma ooyaan tahayna waa in gobolada loo cidiro waa in shanta gobol dad loo diro oo Muqdisho xoreeya antaasaan taagna